salaamay meel walba waa adduunka aad ka joogtaan. Magacaygu waa Abateega. Waxaan idin hayaa barnaamij cusub. Barnaamijkaas ee la magac baxay Kabaro Music. barnaamijka Kabaro Music sidaan idin sheegay waa barnaamij cusub. waxaan ugu talagalnay inay bulshada ay ka faa'iideystaan. barnaamijkan oo isbuucii hal mar oo aan idin soo duubi doono maxaan ku iraahdaa waxaan ugu talagalnay inaan idin tusino qaabka heesaha loo tumo dhaxtaalkeeda iyo farsabaariyeeda iyo haddii loo baahdaba sidii oo instrumenti loogu tumi lahaa. maxaa yeelay dadka qaar ayaa xiisay instrumenti inay u tuntaan macnaha booskii fanaanka oo heesa lahay in oo gacmaha ay ka heesaan. marka isbuuc walba waxaan idin soo diyaarinaynaa ama idin tusaynaa qaabkii heestaha loo tumo. haddana waxaad kusoo dhawaatiin mid ka mid ah heesaha Soomaaliyeed ee aadka loogu jecel yahay ee heestii astaanta Soomaalida ee Soomaaliya tooso ayaan haddana aan idinku barayaa sidii oo piano loo tumo ama keyboard loo tumo. daawasho wacan. wadayaal hadda waxaan galaynaa cashirkeenaan galaynaa. intii cashirka iyo heestumis aan galin waxaan idin sharaxaa waqtiku keyboardka aan idin sharaxaa. keyboardka wuxuu leeyahay power meesha laga daarayo waaye, start and stop meesha laga daarayo, rhythmka meesha laga daarayo laga damihayo waaye. kan inta wuxuu leeyahay rhythm macnaheedu waxa waaye durbaanadii oo tumana ku jiro. keyboard walba wuxuu leeyahay intaasoo durbaan kan hadda 99 rhythm uu leeyahay. kuwa waxaa jiro 150 rhythm leh, kuwa 200 mid walba sibu u leeyahay rhythm dhawa. hadda waxaan fiirinaynaa rhythmka number 3 kuwa nambaradii waaye. numberka aragtid 99 20 ewer hal, laakiin mar walba waxaa ka bilaabmaa ewer hal. rhythmka waxaa ka bilaabmaa ewer hal rhythmkana fiirinayna. markii ewer hal intaan soo taaban startkaan leenahay. rhythmkan waaye ewer hal. okay, kan maxaa toon ku qoran, toon codadkii waaye. toon ewer hal ka bilaabma. waxaa ku jira maxaan ku iraahdaa 150 cod camal ku jira oo kala nooc ah. 150 cod oo kala nooc ayaa ku jira. ewer hal codka ugu horeeyaan fiirinaynaa. inta plus iyo minus uu leeyahay waa kor u soco waaye codka iyo bedel. codka ka kalan bedeli karnaa. toon waa fahanteen. meeshaan durbaankii waaye.
gitaankii waaye, kan ruulooyinka waaye. Stop. Okay, intaan markii waxa uu leeyahay organ walbo, laakiin organ walbo wuxuu ka midaysan yahay intaan uu leeyahay. Ay waxaan idinka hilmaamay tempo. Tempo waxa waaye surcada example hal rhythm kana shidina tempo dis waa dejinayna. Aku dirayna garabno tempo waa kay markii laga soo tago intaas oo organ walba way ka sameeyeen. Tempo waa leeyahay, start iyo stop waa leeyahay, power waa leeyahay, ruulooyinka waa leeyahay. Organ walba meesha dramyada laga tumayo waa leeyahay, rhythmyada waa leeyahay, maxaan ku yiraahdaa cafwan tones codad badan waa leeyahay. Okay, keyboardka markaan usoo degno, keyboardka waxaa usaa ujeediin wuxuu leeyahay cad iyo madow, 5 cad iyo 7 madow. Organka mar walba wuxuu isla socdaa 5 cad iyo 7 madow. wuxuu leeyahay xarfo sida ujeedin xarfo idinku dhaji saa u fahantiin. xarfaas oo ah 7 xaraf waaye, a b c d e f g ilaa e g 7 xaraf waaye. organka ma laha xarfo oo badan ma laha, wuxuu leeyahay a b c d e f g intaasuu leeyahay. markii organ ahaan loo isticmaalayna alfabetkiisa organka markii la isticmaalayo ma ka bilaawdo ma ka bilaabnaa sida hadda alfabetka a b c d e f g intaas xarfo waaye, laakiin ma ka bilaabo, wuxuu ka bilaabdaa c. example hadda inta idin soo qaada c waaye, c ujeeda c d e f g a b c d e f g a b c d e f g a b c d e f g a b c d e f g a b kan xisaab ku jiro b. inta waxaan kasoo bilaabnay geeskan oo bidix c uu ka bilaabday b uu ku dhammaaday. taas macnaheeda oo ah do re mi fa sol la si, 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 do bidix waaye. okay, organka wuxuu leeyahay maxaan ku yiraahdaa bidix midig iyo bidix. midig waxa waaye codka caaltada, bidixna waxa waaye codka baasaha. haddii kuu fudeediyo maxaan ku yiraahdaa gitaarka waa cod khafiif yahay, beeskana waa cod weyn yahay, saas oo kale waaye. okay, daawadayaal marka maxaan ku yiraahdaa wuxuu leeyahay xarafka example tusaalahaan haddii kuu soo qaata xarafka c waatan 1 c waaye, 2 c waaye, 3 c waaye, 4 c waaye, 5 c. xaraf walba 5 xabo wataa, c 5 d 5 g 5 intaasoo oo maxaan ku yiraahdaa ilaa iyo g 5 xabo oo wataa. marka halaha maxaan ku yiraahdaa mid walbo toon oo u gooni ah ayuu leeyahay, laakiin maxaan ku yiraahdaa g iyadoo cod dheer ah, iyadoo cod dhexdhexaad ah, iyadoo cod hoose ah, iyadoo cod kale kasii hooseeya ah fahanti, iyadoo aalto torobo kor ah. marka xaraf walba sidaas oo kale waaye. marka hadda sidaad arkayseen waxaan idin tumay Soomaaliya Tooso, idin tumay heestii astaanta qaranka ee Soomaaliya Tooso. Soomaaliya Tooso qaabkee loo tumaa waaye, waxaan kala dhigaynaa Soomaaliya Tooso 2 qeyb, may 3 qeyb aan kala dhigaynaa. qeyb oo ah forsabariga oo ah halahaas waa forsabarigii. dhextaalkana waxa waaye dhextaalkeeda waaye.
okay hadda waxaan idin tusaa qaabkii Soomaaliya tooso waxaan ka bilaabeynaa codka oo loo bedelaa codka kii aan ku tuurnay aan ka dhigaa ewer 4 3 tombadi okay daawadayaal waxaan hadda tumeynaa heestii oo hadda arkaysay Soomaaliya tooso qaabkii loo tumiyaan qaabkii aan tumiyaan idin sheega waxaan ka bilaabay G xarafka G C oo kusoo dhacay haddana Sidii aan ku noqonaa G C C kale D G C D C kale taas halahaasita haddaan suubin waxaan suubini ta ta tararat okay so heesta Soomaaliya tooso sida aad taqaaniinbo mar walba markii kasii dambeey waa sii kacaysaa furso barigeeda jida tan waa tii labaad 3 jeer ay dhehaysaa ti ti tiririt ti ti tiririt ti ti tiririt musical saasaa ku dhamaysatay okay waa kuu soo celiyaa G aan ka bilaabay G C C kale tii labaad maxaa waay E xarafka E iyo D iyo E D kale E D kusoo noqo tii labaadaan maroosa tii saddexaadaan ku dhiman tii saddexaad maxaa waay B'an taawaneynaa haddana waa boodinaa G aan tegaynaa haddana E u fiirsayaa daawada haddana tii ugu dambeysi waay halahan markaan suubino hoosa usu degaynaa koraan jirnaa mogtahay hoosaan imaanaynaa suubinaa jaranjaro way waa soo degaynaa koo lama saddexaba waa soo degaynaa B u fiirsayaa daawada B Sidii aan hadaantii aan ka bilaabnay kusoo naqanaynaa 5 jeer waayaa markaan siini waxaan kusoo naqanaynaa F E D C halahan muusikadii waa dhammaysatay halahan haddaad gurigaaga kusoo bis aad tumid taqaanid waxaa lee kuu dhiman inaad adiga heestid ama qof kuu heeso okay marka heestii aan galaynaa marka Soomaaliya tooso G C oo lama kale tooso waa ku taagsanaynaa tooso Soomaaliya G C D waay kan suubinmaano Soomaaliya tooso waxaan kasoo bilaabnay G aan kasoo bilaabnay C lama jeer kale D hal mar waa ku taagsanaynaa
suubinayna Soomaali tooso aan soo dhanmaano haddana maxaa waay tooso isku tiirsadaye aan ka suubinayna iyo D iyo C gadaal waa hoosa usoo degaynaa shan jeer waay lama oo isku xigto iyo saddex kale ida kaligeed shan markaan soo suubina diyan kusoo naqanaynaa haddana waa ku naqan diyan kusoo naqanaynaa siyan tagaynaa idan ku naqanaynaa haddana faanta umareyna haddi maxaa kuu dhiman hadba kiini taag darani okay hadba kiini taag darani intii la gaarin waxaa dhexdeeda ku jirta dhaxtaal waxaan dhahay dhaxtaalkaasaa idin sheega marka aawe tooso isku tiirsanaye dhaxtaalkii aawe dhaxtaalka hal maraa hoos loo soo degaa D C B A G tiririri dhaxtaalkii waaye tooso isku tiirsanaye intii oo maxaa ku yidhahdaa fanaankii ama dadkii heesa intii teembada qaadanoyin dhaxtaalina usuu bismayno dhaxtaalkii siwaa xalaas maano hadba kiina taag darane hadba kiina taag darane haddana waxaan kasoo bilaabeynaa jiyan kasoo bilaabeynaa laba jeer G C labo G C D E octaxinena had bikini tag darane ida okay G C D E waa sidee waa ujeediin xarfaha ku qoran yahay had bikini taag daranay waa maano alaasa suubin haddana maxaa noo dhiman taageera waligiine ana dhiman alaha aada u fududahay C D E haddana oo hoos lagu soo noqonayo maxay ku dhacday C D E D haddana gadaal usoo noqo C B haddana hor usii soco daawadayaal heesta Soomaaliya tooso waana ku luqeysay musiikeedan waa soo bisi forsabarigeeda dhaxtaalkeeda macal heesaad ku dartay full instrument akente okay daawadayaal hal mar kalaan idinku celinaa cashirkeeni sidaasaan kusoo gabagabay
daawadayaal barnaamijkeena intaan aan kusoo gabagabeynay fadlan barnaamijkeena barnaamij cusub waaye haddii aada xiiseynaysid ama aada ka heshay fadlan subscribe iyo like noo saar. maxaan ku yidhaahdaa haddii ay jirtana heesa oo favoritkaaga ee aada xiiseynaysid meesha ee commentiga hoos linki ahaan noogu soo dir heesta adi aad rabtid magaceedii iyo informationkeeda markaad na soo dirtid heesta waxaan kuu suubinaynaa inaan heesta aan kuu diyaarin cashir ahaan qaabka loo tumay aan heestaas kuu sharaxaynaa. daawadayaal intaasaan kusoo gabagabeynayna waa inoo isbuuc soo socda.